kulanti waxaan daawada waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa Cabdi Maxamuud Cumar qorshooyinkii u degsanaa 3 sano ka hor inta uusan xilka wareejin. Muuqaalkani ayaan ku soo koobi doonaa daawade. Haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkii ku soo gaaro, magacaygu waa Yahay Maxamuud Maxamed. Bartanna waa Xogta qarsoon. Waxaan ka codsanayaa inaad ugu soo biirto. shalay dhibaatadii uu lahaa dhergigu iyo dhibkii uu lahaa nimankii dhergiga ahaa ee ogeydeen ayaa dib isku soo abaabulay oo raba inay waxa weeyaan xukunkii ay dawladda federaalka carqaladeeyaan oo mar labaad ay Itoobiya dib ugu soo noqdaan iyaga oo sheeganaya ururo kale iyaga oo siyaabo kale u socda. marka waxaan leenahay haddaan nahay shacabka deegaanka Soomaalida iyo xukuumaddiisa mudaharaadada laga sameeyay Gondar iyo Baxardar iyo meelo kamida Oromiya waxaan leenahay waa sharci darro waxay u mudaharaadayaan waa dembi waana waxa weeye sidii mar labaad dhergigu soo noqon lahaa. marka anagoo Soomaalida oo shacabka Soomaalida iyo xukuumaddiisa waxaan u cadeynaynaa in mar dambe deegaanka Soomaalida xukun dhergi la yidhaaho ama wax u egtoona inuuna soo noqon karin. madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xilka madaxtinimo wareejiyay 3 sano ka hor xilligan oo kale kadib 8 sano oo xilkaas hayay. arrintaas ayaa ka dambeysay kadib rabshadaha hareeyay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka iyadoo ay jireen isku dhacyo u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada oo khasaaro nafeed iyo mid hanti u geystay. maalin kadib waxaa Cabdi Maxamuud Cumar qabtay ciidamada Itoobiya oo markii dambe u qaaday magaalada Addis Ababa oo wali uu ku xiran yahay. Cabdi waxa uu ku eedeysan yahay inuu geystay dil, xarig aan loo meeldayn, jirdil iyo ku tagrifal awoodeed xilligii rabshadaha ka socdeen Jigjiga bishii Agoosto 2018 balse dhankiisa waa uu iska fogeeyay dhammaan eedeymahaas. intuu Cabdi madaxweynuhu ahaa waxa hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyeen inuu tacdiil laga geystay deegaanka gaar ahaan jeel Ogaadeniya oo ay ku xirnaayeen dad badan oo loo haystay inay ka tirsanaayeen jabhadaha ama ay taageerayeen. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xilka sii hayay kadib isbeddelo ay ka dhaceen Itoobiya oo xilka ra'iisul wasaare uu qabtay Abiy. xil wareejinta xarigiisaba waxay ahaayeen kuwa aan la filayn waxaana jiray qorshooyin u degsanaa ka hor intuusan xilka bannaan oo aan la xirin sida uu sheego hadallo meelo kala duwan uu ka jeediyay. waxaan soo qaadanaynaa mid ka mid ah khudbooyinkii ugu dambeysay uu meel fagaara uu ka jeediyay. maxaa ka mid ahaa qorshooyinkiisa? waxa uu muujiyay inuu u dabcay onalef mar uu ka hadlayay munaasabadda 100 maalmood ee xilku hayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. wuxuu Cabdi Maxamuud Cumar ugu baaqay onalef jabhadda wadaniga ee xoreynta Ogaadeniya inay ka faa'iideystaan baaqa ra'iisul wasaaraha u jeediyay jabhadaha iyo xisbiyada mucaaradka ah inay nabadda qaataan. jabhadda onalef oo markaas baarlamaanka dalka Itoobiya ka saaray liiska ururada argagixisada ayuu weydiistay in fursad la siiyo ayagoo ka faa'iideysanaya si ay nabadgelyo siyaasadooda ay ugu wataan. hoggaanka jabhadda colaadi iyo naceebkii hore ee sanado badan ay waddan ku hayeen intay dhinac iska dhigaan dadaalada nabadeed ee dalka socda waa inay qayb ka noqdaan ayuu yidhi Cabdi Maxamuud Cumar. dhammaan maxaabiista u xirneed deegaanka iyo jabhadda onalef waa la sii wada daayay. waqti xaadirkan hal qof oo jabhadda onalef darteed u xiran ma jira ayuu sii raaciyay hadalkiisa. sidoo kale hadalladiisii waxaa ka mid ahaa cafis uu dalbaday iyo in la saxo qaladaadkii ka dhacay. waxa uu sheegay in mar kasta uu shaqo la qabanayo uu qalad dhici karo balse wararka propagandada marka la iska reebo wixii ay qaladkiisu leenahay inaan saxna ayaan diyaar u nahay yiri khudbad uu jeedinayay bartamihii bishii Julaay 2018. waxaa kaloo uu sheegay Cabdi Maxamuud Cumar in qaladaadkii hore u dhacay mas'uuliyadooda qaadayaan xukuumadda deegaanka iyo xisbiga talada haya wuxuuna cafis ka dalbaday shacabka deegaanka. dhammaanteen waa inaan qaladkeena qiranno isla markaana aan dalbanno cafis. dhaqankaas ayaa loo baahan yahay inta aan dhammaanteen caadaysano oo aan ku dhaqanno ayuu yidhi. mid ka mid ah qorshooyinkiisa waxaa ka mid ahayd in albaabada loo laabo jeel Ogaadeniya. isla munaasabadaas 100 maalmood ee xilku hayay Abiy wuxuu Cabdi ka sheegay in la qorsheynayo in la xiro jeelka dhexe ee dowlad deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan jeel Ogaadeniya. waxaan qorshaha ku darsannay oo aan fulinteedana hirgelin doonaa inaan xabsiyada ka dhigo xarumo horumarineed tusaale ahaan xabsiga oo iskuul loo bedelo, masaajid loo bedelo, xarumo caafimaad loo bedelo iyo in qarashkii ku baxaya loo adeegsado dhanka horumarka ayuu u sheegay dadkii dhageysanayay. xabsigaas oo tacdiyo badan loogu geysan jiray dadka maxaabiista sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha. ugu dambeyn waxaa la xiray bishii September ee sanadkii 2018. sanadkii 1996 ayaa la aasaasay jeel Ogaadeniya
xilligaasna waxaa madaxweyne kilinka ka ahaa qadar macalin cali inkastoo magaalada jigjiga ay fiday haddana waxaa xilligaas magaalada laga fogeeyay jeelka oo laga dhisay 5 ilaa 6 kiiloomitir goob u jirta balse hadda magaalada ayaa fiday oo dhaaftay waxaana la oran karaa wuxuu ku yaal bartamaha meelo ku dhow mid afraad waxay ahayd sii wadida qorshooyinkii uu la yimid ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in maamulkiisu uu qorsheynayo inuu sii wado isbedelada horumarineed iyo kuwa nabadeed ee uu horseeday maamulka Abiy kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dhanka dhaqaale iyo cafinta loo fidiyay jabhadaha waxaa loogu baahan yahay in nidaamku degdeg ku shaqeeyo shacabka dartii masaakiinta dartoodna loo turaa in hore loo sii socdo ayaa la rabaa gacmo isku duubani ayaa wax qabta isku duubni ayuu qorsheyna ku jiraa yiri Cabdi xilligaas Cabdi Maxamuud Cumar oo Soomaalida qaarkood u yaqaan Cabdiilay wuxuu ku caanbaxay tacdiye badan waxaana la xasuustaa in deegaankiisa ay ka dhaceen falal badan oo dadka lagu caburinayo Soomaalida xitaa ka baxda qaybaha kale ee dalka ee jinsiyad ahaanta Soomaalida ah ma aysan awoodin inay tagaan jigjigii deegaanada kale ee dowlad deegaanka Soomaalida sabab la xiriirta xukunka adag ee xilligaas uu ku maamulayay dowlad deegaanka Cabdi wuxuu hore u soo noqday taliyihii nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa dadka aadka ugu dhawaa xukuumadihii Tigreeg ee dalkaas Itoobiya soo maray balse tani markii xukunku la wareegay Abiy Ahmed waxa yaraaday saameynta dawladdu ay ku yeeshaan dadka taageersanaa fikirka Tigreega sida daraadeed Cabdi iyo kuwa badan oo la shaqeynay xitaa waxa lagu xukumay maxkamado Cabdi ayaa waxa uu hadda ku jira xabsi ku yaala dalka Itoobiya waxaana muuqaalo laga soo duubay ka muuqanayay isagoo diif iyo sidoo kale caburin badan oo u geysan jiray xilligan laga gudayo hooyadiis oo mar xabsiga ku tagtay waxay sheegtay in wiilkeeda habeen kasta uu bararto sidoo kalena lagu dilaa xabsiga si binaadiyada ka baxsan loola dhaqmo xanuun badan oo dad u geystay qaarkood waa ay dhaliileen sida loola dhaqmay Cabdi sidoo kalena kuwa badan waa ay taageereen in laga gudo waxyaabihii kala duwanaa uu geystay dadkii Soomaaliyeed daawadaadiga muuqaalka daawanaya fikirkaaga waa nala wadaagi kartaa nabadgelyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in Itoobiya ay ku sii waari karto oo kaliya hanaanka federaaliga iyo dastuurka saldhigga waa dimuqraadiyadda iyo horumarka dalka shacabka magaalada Jigjiga ayaa wadooyinka iyo garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga ka dhigay dibadbax ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan kooxaha Onag iyo Gimbood Sabat